shirkadda kareynta qalabka dhismaha guryaha casriga ah dabaqyada baraagaha godadka ee gari oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ay ku caanbaxay adeegsiinta bulshada islamarkaana ka howlgasha geyiga Somaliland iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xarunteeda magaalada Ceergaabo ku soo kordhisay qalab cusub oo loogu talagalay dhismayaasha casriga ah baraagaha godadka waxaana munaasabadii lagu shaaciyay lagu qabtay xarunta Hotel Sanaaga ee magaalada Ceergaabo waxaana xafladaasi ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada xildhibaanka ka sangulaha deegaanka mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadaasi iyo madax dhaqameed waayeel waxgarad iyo waliba bahda sportska waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadaasi Maxamuud Nuur Aadan iyo maamulaha shirkadaasi u qaabilsan gobolka Sanaag Siciid Jaamac Xasan maantana waxaan ugu bushaareynaa dhammaanba macaamiisha iyo bulshada gobolka Sanaag Ceergaabo in la keenay oo la soo kordhiyay qalab kale oo siyaado ah oo ay ka mid yihiin inaanu sameynayno gajeelayaasha albaabada birta aanu geerash sameynayno lagu sameeyo gaadiidka waaweyn ee lagu shaqeeyo iska rogooyinka qalabka gura haddii aan la ku roon yahay xiriyo bulkeed inaanu sameynayno qalabkaas oo dhan iyo haddii aan la ku roon yahay bahalaha lagu qaldo sibirka lagu qaldo qaldadaha waxaas oo dhan waan soo kordhinay waxaanu rajaynaynaa inaan haddii aan la ku roon inaanu sameyno qiimo dhimis fiican inaanu sameynaa baanu insha Allah ku tala jiraa waxaanu leenahay bulshada gobolka Sanaag shirkadda Geri oo markii hore qalabka idin keentay haddana qalabka idin soo kordhisay waa aad iyo aad baan horta macaamiisheeda marka ugu horeysa ugu mahad celinaynaa customerka yaga waan u mahad celinaynaa waxaanu kaloo hadda aanu keenay sida arkayseen qalabkii ciyaalka haddii alba kubadda ciyaara laba kooxood ayaan u keenay direyskoodii haween maalintii ugu horeyso oo gobolka wax siiyay ama aan gobol ku soo biiriyay marka ma aha oo wali siiba dhalinyarada shirkadda sideedaba marka hore asaaskeeda waxay ku saabsan tahay dhalinyarada inay dhalinyarada la shaqeyso gobol kasta ay joogaan meel kasta ay joogaan bulshada joogta magaalooyinka aan ka shaqeynana waxaanu ku siinaa qeybaha hadiyada ah iyo alaab fara badan oo discount ah waxyaalo badan oo gobolka iyo shaqaalaha iyo danyarta aan ka caawinaa jira dhalinyarada iyo magaalooyinka dhamaan markaa waan salaamayaa halkaan maanta waxaan ku guddoonsiinaynaa laba kooxood oo ah gobolka ka tirsan Sanaag oo ciyaartooy ah iyo saddex shahaado oo nimanka u mutaystay shahaadooyinka ah oo gobolka ka shaqeeyo foormaanada gobolka ah oo ah wastaadinta ama foormaanada oo kuwa ayagana waa ninka magaca leh waxaana halkaasi hadallo bogaadina ku aadan mas'uuliyiinta shirkadda Geri halkaasi ka soo kala jeediyay xubno isugu jira madax dhaqameed waayeel waxgarad xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo iyo taliyaha saldhigga degmada runtii waqti walba wuxuu leeyahay waqtigiisa iyo qalabkiisa waxay tahay shirkaddan ugu soo horeysay ee ku soo beeganta iyadoo baahi weyn loo qabo oo runtii qalabka laga shaqeeyo guryaha aad iyo aad loogu dhiban yahay dhaawacyo badan ay ka soo gaaraan dadka guryaha ka shaqeeya marka ilaahay baynu ku mahadinaynaa waxaynu ku hambaliyeenaynaa mulkiilaha inoo gartay inuu qalabka inoo keeno maantana markii labaad wuxuu inoo soo kordhiyay qalab kale aad uga sii ballaaran qalabkii hore oo gaadiid waaweyn leh oo qaldadihii leh oo dhismihii leh oo geerashadii leh alxankii leh runtii shaqo abuur badan halka aynu ka rajaynayno inuu ka soo baxo run ahaantii waxaan hambaliyeenaynaa shirkadda Geri ma aha markii koobaad waa markii saddexaad baan u maleynayaa xafladda ay dacfurto 5 sano ka hor waxay noo keentay iyadoo qalab sida iyo gaariya customerka fara badan ay kasbatay ayaa keenay maanta intaas oo qalab ay keento maanta waxaad moodaa qalab aad fara badan bay keentay qalabkaana in la shaqeeyo waa waajib dib shirkadii waa noo sharaxdeen waxay qabanaysana waa soo bandhigteen horena waa u shaqayseen wax soo kordhinna waa ku soo darteen sidaa wax ugu darteen ilaahayna waxay idinku sii daro mar haddaa halkaa maraysaan mar haddaa Gerina la baxdeen qoortiina intaa leeg tahay annana aanu aragnay waxqabadkiinuna inuu sidaa u dheeraanayo oo qoorta ula baxayo baanu idinku ducaynayn marka shirkaddan Geri waa la yidhi saa Gerigu u dheeryahay bay uga dheertay shirkadaha horta taas waa rasmi insha Allah way uga dheeraan doontaa qalabka ay soo kordhisayna waxa weeye badan yahay waxa kamid ah iska rogooyin
qolyaha dee guryaha iskarogooyinka aad ha looga kiraysto salaamada cusub ee dhismaha qadladaha waanu hambalyeynayna qalabka ay soo kordhisay halkan qalabkan dhabarkayga ku sawiran shirkadda gari baa keentay way inoo balbalaadhiyeen waxay weliba qiimo dhimista waa seer buu leeyahay shirkaddaas shirkadii waxay dheeraatay sidaa luqunteedu u dheer tahay bay shirkadaha kale ee wax soo saar uga dheertay garigaa dheer weeye islaamka waa soo dhaweynaa shirkadan casriga ah ee gari sida xasan shirkaale sheegay shirkadaha dee sida gariga u dheer yahay uga horeysaa waa soo dhaweynaynaa ilaahayna ha ku guuleeyo wax badanna way ka qabatay gobolka haddeera waxay samaysay qiimo dhimis waxaanu leenahay soo dhawaada aadna waa idinla shaqaynaynaa shirkadaasoo soo korisay qalabo badan oo dhismaha ah oo guryaha hana qaadaysa waxaanu leenahay shirkadaha kale shirkada gari ha ku daydeen wax wanaagsan baad soo kordhiseen waan la garab taaganahay waxaanu leenahay shirkada gari dad reer ceergaaboy shirkada waxa wanaagsan soo bandhigtay ka dhista waan soo dhaweynaa anna shirkada dadka koowaad wax ka dhisanaya kamid ah ballaarinta lagu sameynayo shirkada gari awalba shirkada gari dee customerkeedana waanu ahayn horena waa ugu xidhnayn qalabkana way naga kirayn jirtay haddana inta ay soo kordhisay waan ku xidhnaan doonaa haddii ilaahay raalli ka dhigo qiimo dhimista ay samaysayna insha allah reer sanaag way ka wada faa'iideysan doonaan iminkana waa soo dhaweynaynaa qalabkan iyo qiimo dhimistan ay soo kordhisay waa ku soo dhaweynaynaa waana ugu hambalyeynaynaa waxaan fiican ay keentay ilaahayna ha u barakeeyo waxaan ugu dambeyntii halkaasi hadalla hambalyo ku aadan mas-uuliyiinta shirkadda gari halkaasi ka soo jeediyey maayir ku-xigeenka degmada ceergaabo cabdiraxmaan maxamuud maxamed qalad ballaaran iminka lama odhan karo hore magaalada ugu soo kordhisay oo shirkadihii ugu horreeyey ama aan odhan karo shirkaddii koowaad ee qalabka guryaha lagu baxo ama lagu qabto ee quality-ga guryaha iyo shaqaalaha badbaadada shaqaalahaba runtii keentay horena aad baan uga mahadnaqaynay dadka ku xidhanna ka mid baanu ahayn iminkana waan soo dhaweynaynaa waxqabadkan cusub ee sii derdergelisay aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan kaloo ku faraxsannahay dhalinyarada halka ka muuqata iminka ee loo qaybiyey agabka sportska ee halkan dhammaantood ka wada muuqata insha allah inaa kooxdaasuna ay sii hirgasho oo kooxaha ka mid noqoto ayaan maamulka shirkadda aanu ku bogaadinaynaa waxaana ugu dambeyntii maayir ku-xigeenka degmada ceergaabo iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda kareynta agabka dhismaha ee gari halkaasi ay agab ciyaareed ku guddoonsiiyeen 2 tiim oo u ciyaara shirkadda gari iyadoo halkaasna shahaadooyin lagu guddoonsiiyey foormaanada sida dhow ula shaqeeya shirkadaasi cali aadan daahir wararka telefishinka caalamiga home cable tv magaalada ceergaabo waxaad samaynaysaa kulbaleygiisa tablet ma ihii cunto kariya dhammaystiran waxaan ahay arday ku dhigtaa qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka myfi internet samtel macmiil kaga shubo xidhmooyinka internetka iyo ku hadalka xidig halibeer hale fergees oo hel 20% oo ah internet abaalmarina oo dheeraada